saaxiibayaal galab wanaagsan subax wanaagsan casar wanaagsan habeen wanaagsan xilli kastoo idin tahay wanaagsan kusoo dhawaada muuqaal cusub muuqaalka maanta waxaan kaga hadlaynaa waa muuqaal kooban waan ugu talagalnay in isbedelka ku imaanayo xilligii samarka laga guuray loo guuray xilligii qaboowihii ama roobaadka jaakado iyo dallad sidaad aragtaan waxaan wadanaa dallad soo dhow cabdirashiid waa maasan tahay xuseen geesay dabcan roob ayaa hadda da'aya inkastoo hore loo yiri roob yurub iyo weliba dumar yurub jooga midna laysuma haleeyo laakiin dumarkeena soomaaliyeed boqolkiiba boqol waxay yihiin kuwo laisku haleyn karaa waxaan ku leeyahay kusoo dhawow qabowgii qaaradda yurub war aniga kastana u adkaysala finaanada iska wataa aad iyo aad inkastoo blambigayga aan wato boorsada ay igu jirto yurub mar kasta waa inaad diyaar garowdaa oo boorsadaada waxaa la galay xilligii dayrta xilliga dayrta dabcan roob ayaa imaanaya qabow yar ayaa jiraya waxaa sii idlaanaya oo gabagabo ku dhow xilligii saamarka qoraxdu ay iska soo taagneed dad badan faa'iido ayay u helaan markaan ku leeyahay dad badan baa faa'iido ku haysta qabowga waxaa ka mid ah dadka habeenkii shaqeeya oo kaleeto maalintii hurdo fiican ayay helayaan laakiin xilliga saamarka isagoo qofkii habeenkii soo shaqeeyey ayuu dhibaato ku qabayaa qoraxda maadaama kuleel uu jiro si fiican maxaa kaloo oo qaboowaha sida cudurro iyo waxyaabo badan oo ka dilaaco dad badan waxay ii sheegeen in cuncun iyo waxyaabo badan qofka uu ka qaado qabowga badan hadduusan isticmaalin dawooyin iyo wax la mid ah marka ama dhakhtar uusan u tegin xasaasiyad uu ku qaadi karo qofka cusub maxaad kula talinaysaa inta ugu badan markaad joogto qaaradda yurub dadku waxay qaataan cirbado talaal ah oo hergebka oo kaleeta ah maadaama hawada ay isbedelayso xilli kuleelo lagu jiray xilliga qabowwaha oo kaleeto loo guurayo waxaa imaanaysa in wadanka dadku inta badan ay qabaan hergab oo kaleeto qofka jirkiisa daciifka oo kaleeto ama dadka u nugul hore ay ka haleelaan dadku waxay sameeyaan inta ugu badan waxaa qofka dhakhtara ayuu leeyahay gaar ah dhakhtarkiisa ayuu tagayaa kadib waxa uu sameynayaa ballantaa kadibna waxaa laga durayaa hergebka dadka afrika aadayo kale inta badan waa ay sameeyaan maadaama qaaradeena inta badan malaria iyo hergebyada inta badan ay u nugul yihiin sidoo kaleeto jawiga ayaa isbedelaya dadkii ayaa isbedelaya jawiga isbedelay dadkuna waa isbedelayaan say isku bedelayaan dadka jawiga waaba gartay dadku waxay isku bedelayaan hadda markaad sad u eegto xilliga samarka hablaha oo kaleeto waxay qaataan dhar yani saamar ah oo khafiif ah geedaha oo kaleeto iyagu gebigoodba waxay leeyihiin caleemo weliba doogu aad u qurux badan yahay sida hadda aad u jeedaan hadhow markuu u bilowdo qaboobaha geedaha waa caleemadaha ayaa ka daadanaya dadkuna waxay qaadanayaan jaakada waaweyn dumarku sidaas ayay isu asuturayaan geedihi ayaa qaawnaanaya marka waa kala bedel marka marna dumarka ayaa qaawanaya marna geedaha qaawan aad iyo hadda geedaha waa asturan yihiin way qaawnaan doonaan kadibna waa isbedelayaan aad iyo aad dadka cusub ee yimaada halkan soo gala oo aan la qabsanin weli jooga sideeda oo kale maxaad kula talinaysaa qofka markuu ku cusub yahay qaaradda yurub qabowahana la gaaro dabcan waxaa dhibaya qabowga annagoo kaleeto waxaa laga yaabaa inaan la qabsanayn si fudud aan ku qaadanayn inkastoo jawigii iyo marxaladaha markaa taagan qofka uu ku xisaabtamaayo marka ugu horeyso waa inaad iska fiirisaa wiitarka halkuu marayo maanta roob maa soo da'ayo qabowga halkuu gaarayo heerkulka halkuu uu yahay jawigaa la socaysa mobeelkaaga kuu sheegayo magaaladaad degan tahay labo mar kasta waa inaad wadataa dalladaadii jaakadaadii sidoo kaleeto haddii aad qabto xasaasiyad geedahan oo kale waa laga qaada dad baa ka qaada sidoo kaleeto oraxdoo kaleeto xilligii gabagabada ay tahay dad badan ayaa indhaha xanuunayo hetistoodu ay badan tahay hergab baa meeshaas ka imaanaya mar kasta marka waa inaad noqotaa qof yani diyaarsan u diyaarsan jawiga iyo weliba qaaradda yurub sida ay isu bedelayso inkastoo jarmalka iyo yurubba hadda ay kasii yaraanayaan qaboobaha bishan oo kaleeto sagaalaad baa
qabowga aad buu u imaan jiray laakiin qabowga ugu daran hadda wuxuu yimaadaa dhamaadka sanadka 11aad 12aad ilaa iyo koowaad marka isbedel weyn baa meeshaas ka imaaday qaaradeena Afrika jijigoo kale baa waxa laga sheegay muslimiinta ku soo badatay alxamdulillah maanta Hamburg oo kale markaad aragto masaajido badan ayaa ku yaala muslimiin badan baa ku haystaan carabtii soo guurtay 15kii wadankan Angela Merkel ay tiri waanu shaaf gareyn karnaa inaan qaabilno dadkaas hadda ganacsiga ayay furteen Soomaalidu dukaamada ku leeyihiin wakaaliska arag wala la marka roob badan aan ugu daayo aadi dhirtii iyo waxyaabo badan waa meeshan aan taaganahay waa meel biyo mareen ah aadi guntii gabagabadii maxaad ku soo koobaysaa waxaan ku soo koobaynaa Soomaalida qaaradda Yurub ku cusub jawiga kaliya hala qabsanina waa inaad la qabsataan nolosha wadankan wuxuu u baahan yahay inaad marka ugu horeyso samayso isdhexgalkaas waxa ugu horeeya waa luuqadda dadka qaarkii waxay sameeyaan shaqooyin ayay ku ordaan adigoo shaqadii tagay haddii lagu yiraahdo halkaa wax ka soo qabo oo suuliga aada ka war waa dhibaato leedahay marka waa inaad isfahanka muhiim waay luuqadda aad fahanto kadib shaqo tag ugu dambeyn waxyaaba aan leeyahay waxaa waaye aad iyo aad meel aan deganahay xalay qofa suuliga cambo ku cunay waa dadka maxaa la yiraahdaa kaamko kale sir waxyaabo ku arkaysa cajiib ah marka guri degto dadkii waa kugu yaraanayaan adiga laga yaabaa niyo maanta kale iyo qofkii inaad dhahdo uu xiisto laakiin hadda qof baa suuligii timo ku jaranayo qof baa suuligii wax ku sameynayo yani wax walba waxay u yihiin shay seegaal waxa iyaga ma gelin okay intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa sheekada way sii dheeraan lahayd laakiin roobka ayaa lagu batay dalad aa wadano kaamiradan xoogaa naga qoyeysa intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa saaxiibayaal soo dhawaada like shareta iyo commentiga maxaa leedahay waxaan leenahay saaxiibayaal muuqaaladeena halkaas ayay ka bilowdeen toddobaad kastana waxay idin soo gudbinaynaa barnaamijyo ku saabsan nolosha wadankan iyo Hamburg insha Allah